بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إلهي سبحانه وتعالى خير يا حسنات فربضان هالسيو الشيخ الدكتور آدم شيخ علي كلمة داس قيمها بدن أنا جن إلهي نقع سبحانه وتعالى أنت سامع قلني قيبه محاضراتك يا ناس عدولي وحسوا قرني تقريبا قيبه لحظة ينسوا قرني قيبه كلا بدن إن شاء الله تعالى وينادي ميهين مناسبات يرير أو جوسنا لحظة إن شاء الله وكجري دون الدولة إلمه مركز دمان ولا له وحنا قعد سنة ناس السقط يلغاق فرح بدننا يريان قفل بو فريسته إن شاء الله تعالى محاضرة يا دنا نو حكتنا بلابد إن شاء الله تعالى دقيقة محاضرة حتى إن شاء الله تعالى وح مرتين أبوه فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل عوانك إن شاء الله تعالى وكنا قنتنا أعياد الكفار وموقف المسلم منها عيدها قالبا تدك عن مسلم كان عيدها إليهن يقفك مسلم كأه وحا أوغا آدن لدونا إنه مارتين موقف كي يستاقو وعن أغنى هاي لما إن هدا أن جوغنو سنة ميلاد آخر كيسي ويكسو آديهن عيدي كريسماس كالديه جري مارتين عيد مولد المسيح عليه الصلاة والسلام قالada ay sanad walba dhigtaan 25 bisha December waxaan kale ognahay insha Allah taala inay ku xigto ciida raas sana ama sanadka cusub kooda January sanad walba la qabto ciidahaas runtii dad badan oo muslimiin ah ay ka qayb qaataan iyagoona ogeen maartay diinta islaamka waxay ka qabto iyo waxyaabaha la doonayo qofka muslimka inuu iska ilaaliyo markay xilliyadaas kala munaasabaadkaas la gaaro موضوع إن شاء الله تعالى أورنتي موضوع حساسي موضوع حد تاجنا وعندنا إن شاء الله ضمان مسلمات كأنه دقيستان سفيعان كان فائدة استان إن شاء الله تعالى كلمات كشيخ إلهي وكوا في الجو شيء دون أدو إلهي إدمه مركا وعنكسر دويننا فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة الدرس قصة كوبا ولغت المامية أعياد الكفار وقفات وأحكام واكل ليس قد بيه si guud ahaana ciiddu waa magac sheegaya kulan soo noqnoqonaya ama mid sannadeed ha noqdo ama mid bileed ha noqdo ama mid isbuuciya ha noqdo oo ciidaha qaar baa ah isbuuc kastaba midna ciidda jimcahoo kale oo isbuuc kasta ciidaha qaarna waa sanadkii su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan dadku hadda iskaga qasantay gaalka maxaa laga qaadan karaa maxaanse laga qaadanayn gaalku waa qof bini aadama oo diin kala haystaa maxaa bannaan in laga qaato maxaanse bannaanayn in laga qaato waxaa bannaan wixii manfac ku jiro ee sharciga ku bannaan aqoonta maadiga ah oo kale iyo wixii la mid ah ma bannaana wixii diin iyo dhaqan ku saabsan ee cid gaar ay leedahay in gaala laga soo qaato nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ummadda dambe inay fasaadi doonto oo wuxuu nabigu tilmaamayaa latatabicanna sanana man qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low salakuu juxra dabbin lasalagtumuuh قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن dadka muslimiinta ah ilaahay wuxuu ina faray salaad kasta inaynu ku ducaysano akhrino faatixada ducada ugu weyn aynu ilaahay weydiisanayna waxa weeyaan ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وحين ويدساننا جدك قمنا إنه ينوهنونيه جدك النبي يدي صالحين تيدتك ونكسنا مرين
in rabbi inaga ilaaliyo jidka kuwa lumay iyo kuwa rabbi u cadhaysan yihi xadiisuna waxay ku tilmaamaysaa qolada rabbi u cadhooday inay yuhuud tahay qolada luntayna inay nasaaro tahay iyadoo taasi ay qaacidada caamka ah tahay oo qofka muslimka ahi maalin kasta shanta salaadood oo qura hadduu tukado 17 goor oo ilaahay ka magan gelayo jidka qolada inuu maro ayuu haddana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwii idinka horreeyey waddaday mareen taakataakiya dhudhudhudhub baa u raaci doontaan oo hadday god masalugalay ama masacagalay galaanna waa ka dabagelaysaan buu nebigu yidhi waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo ma yuhuudiya nasaara yani saxaabadu way qaadan kari waayeen iyagoo ilaahay maalin kasta ka magan gelaya jidkooda haddana in la yidhaahdo jidkooda raaci doontaan waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo ma yuhuudiya nasaara nebigu wuxuu ku yidhi faman yaa kale xadiiskaa saxiixaynka ku yaalla ee dadku waxay isweydiinayaan christmaska in la xafladeeya ma bannaan tahay in la tahnadeeya ma bannaan tahay in laga qayb qaataa ma bannaan tahay in la dhigtaa ma bannaan tahay intaynan ma bannaanta iyo ma bannaana ka warramin aan isweydiinay muxuu christmasku yahay christmas christ waa mukhallis nebi ciise uga jeeda waa savior masna oo maqطaca labaada iyana macnaheedu waa miilaad christmas waa miilaad اlmasiix aw miilaad اlmukhallas mukhallaskii goortuu dhintay goortuu dhashay ciidaha nimanka kristanka ahi ama masiixiyiinta ahi say buugagtooda ku qoraan 140 ciidood bay ka badan yihiin 140 maalmoodoo celebrations la sameeyo 14 baa waaweyn 14 toddoba ugu sii waaweyn toddobada waaweyn maxaa ka mida markaa labadan had iyo goor dadku ka hadlaan ee ah christmaska iyo easterka mid waxay leeyihiin waa maalintuu ciise dhashay midna iyagu siday qabaan waa maalintii la dilay su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa ma la garanayaa horta maalintuu ciise dhashay ma loo dabaaldegi karaa hadda mayso maalin la garanaya ma tahay bible-ku haba yaraatee birthday-ga waxba kama sheegin ciise qoliya qaarkood baa waxay yidhaahdaan ciise wuxuu dhashay sida luuq ku qoran ciise wuxuu dhashay maalin yacni wakhti ay qoladii adhiga raacday habeenkii markay adhiga soo xareeyeen ay warka maqleen waxaa macruufa bay yidhaahdaan falastiin winterka inaan habeenkii adhiga dabadda lagu haynin winterku waa wakhti dhaxaneed marka wakhtigaasi winter ma noqon kara bay u deliishadaan waa halka sheekha diidaatana uu isna ka deliishado timirtii maryan la yidhi ruux timirtu goormay bislaataa waxaa la yaqaanaa inay samarka bislaato xagaaga kulaylka ku bislaataa maadaama timir la yidhi geedkaa timirtaa rutab uu ka soo daadanayo winterka rutab ma jiro haddii la yidhahdo december rutab ma jiro haddaba xagguu ka yimi qoraayadii hore ee qarnigii 2 iyo 3 ee wakhtigaa ciise loo nisbaynayo dhalashadiisa ka dambeeyey haba yaraatee wax dhalashada ciise la yidhaahdo kama hadin marka la eego kutubtoodu inta badan dhimashadiisa waxay ku sheegaan iyo crucifixionka ayay ka warantaa laakiin kama warranto dhalashada in badan Alexandria origin of Alexandria nin la odhan jiray oo noolaa qarnigii 2-3 ayaa wuxuu ku sheegayay celebrationska birthday-ga la yidhaahdaa inuu yahay pagan in loo dabaaldego maalinta dhalashadu waa diinta wathaniyiinta iyo baaganimada buu leeyahay waa nin masiixi ah oo qarnigii 2 ama 3 nool wuxuu leeyahay dabaaldega la sameeyo ee ku saabsiisan birthday wax la yidhaahdo waa paganiska dhaqankoodii buu leeyahay
taa macnaheedu waxa weeyaan wakhtigaa meeshaa ninkaasi joogay inaan christmas iyo wax loo dabaaldegiyo waxaasi toona ka jirin sida la og yahay qarnigii labaad ee kristanadii noolaa may dabaaldegi jirin walidaalika baa nin qoraaya oo Clement of Alexandria wadaad la yidhaahdo wadaadadooda ka midi ayaa wuxuu leeyahay ciise dhalashadiisa tawaa'ifta kooxaha kristanka ee kala nooca ahi waxay soo propose gareeyeen waxay soo bandhigeen buu leeyahay maalmo kala gedisan waxyaabaha cajabta lena waxaa ka mid ah maalmaha 25 Disembar marnaba kuma jirtaba waa maalmo kale maalmo ay kristanku isku haystaan goormuu dhashay Clement qoraagiisa waxa uu ku tilmaamayaa qola waxay yidhaahdeen sanadkii 28 Augustus bishii Bakhal la yidhaahdo 25 oo dhiganta May 20 buu dhashay bay leeyihiin sanadkana 28 bay ka dhigeen Augustus waqtigiisii qola kale waxay yidhaahdeen 28 kaba ma ahayne iyo waqtiga Augustus toone waa 16 Tiberius waqtiga la yiraahdo ninka la yiraahdo waqtigiisii waxaana yiraahdeen wuxuu Ciise dhashay 22 Abriil qola kale waxay yiraahdeen wuxuu dhashay 15 Abriil qola kale waxay yiraahdeen wuxuu dhashay 20 Abriil idan waqtiyada casriga ay sheegayeen oo dhan waa Abriil iyo May iyo March wax December iyo meesha tani kuma jiraan waxay isku hayaan nabi ciise ma March buu dhashay mise Abriil buu dhashay mise May buu dhashay taariikha kala gedisan bay tilmaamayaan qarnigii afraad ayay soo bilaabantay oo ay caan noqotay waxaan loo yaqaano 25 December iyo 6 June ee 6 January la sheego kiniisada kristanku qarna 25 kay u dabaaldegaan Orthodox waa Catholic iyo wixii raacsiisan ka dambeeya Orthodox kuna waxay u dabaaldegaan 6 January sadaradeed kiniisada barigu January 6 bay dabaaldegaan kiniisada galbeedkuna 25 kay dabaaldegaan January 6 waxay kala ku beegan tahay yawm at-ta'mid maalinta ay aadka weynayeen ay leeyihiin Ciise biyaha la galiyo laga soo saaray oo ta'miidka loo sameeyay bay ku beegantay marka 25 December laga soo bilaabay ilaa 6 January 12 maalmood ba qaar baa dabaaldega wada siday ku timi marka haddii aynu leenahay taariikhdii hore lagu bahayo maalintu dhashay qoraayadii hore kuway qoreen waxay sheegayaan inay ama Abriil ahayd ama May ahayd ama March ahayd xagay ka timi hadda December tan iyo January tani laba theory baa jira way qoraan labada theory mid baa aad u caansan ka aadka u caansan wuxuu sheegayaa 25 December diinlaawayaashii Scandinavian-ka ku noolaan jiray waxay u dabaaldegi jireen wax yuulka la yiraahdo Jarmalka iyo kuwaasina waxay u dabaaldegi jireen Saturnalia wax la yiraahdo ilaaha cadceedda iyo ilaaha beeraha baa loo dabaaldegi jiray qolana waa ilaaha beerta god of agriculture qolana waa ilaaha cadceedda ama se cadceedda loo dabaaldegayay inay soo noqoto waa waqtigii 25 December waa waqtigii qaybahaasi madowga galaan ee maalintu yaraatay habeenku bato marka waxa la weydiisanayaa inuu soo noqoto cadceeddaas kaasi waa theory-ga ugu badan waxay leeyihiin oo hadda maalin gaaleed bay ahaydee wadaadadii hore kristankana waaba kuwa maagayay celebrationska birthday oo dhane maxay kuwan dambe u aqbaleen waxay yiraahdeen waxa loo aqbalay maalmihii markay kristanka qaateen bay yiraahdeen war maalmahoodii ay dabaaldegi jireen aan maalinta bedeluun oo nidhaahna waa maalintii Ciise dhashay oo shaqo kristan aan samayno halkii ay shaqada sanamka la caabudo ama cadceedda la caabudo ay wadeen aan ku bedel cibaadaad masiixiya bay yiraahdeen qolada kalena waxay leeyihiin may bisha May ama March ama maalmahan aynu sheegaynaa مثلا 25 March wuxuu ku beegan yahay bay leeyihiin
maalintii yowmu tabshiirka maalinta yidhaahdaan yowmu ciidulbishaara maalintii jibriil uu maryan ugu bushaareeyey in ilmo la siinayo waxay yidhaahdaan maalintaa ilaa iyo disembar marka la xisaabiyo waxaa u dhaxaysa 9 bilood marka wuxuu maanu qiimaynay maalintii jibriil uu yimi baa intaa ahayd hadduu birthday-gii hadduu si caadiya u dhashay inuu disembar dhalan karo theory-ga qolada theology-ga sheega laakiin inta badan ka caanka ma aha 6dan ay isku hayaan ma 25 January ma 25 December ba mise 6 January na waxay u dhaxaysaa maalmaha ay ku muransan yihiin oo ah ma 6 April buu dhashay mise 25 March buu dhashay isla markaana crucifixion-ka iyo ciid al-bishaaru annunciation-ku waa isku waqti ayay iyagu qabaan maalintii loo bushaareeyey isla maalintaasaa la dilay isla maalintaasuu urgalay dabeetana waqtiga ka muu dhashay soo duuduub waxaan leenahay ciise goor uu dhashay cidi garan mayso oo haddaan goor uu dhashayba cidi garanayn maxaa loo dabaaldegaya waxyaabaha cajabta ah waxaa ka mid ah ee ciise ku saabsan qarnigii sagaalaad khilaal alqarni التاسع عشر aan idhaahno waxaa bilaabmay brotestanka qaybo ka mid oo leh waa bidco kaatoligu samaystay sidaa daraaddeed iyo in maalintaa la dabaaldegay kiniisadda kaatoliga baa radiday oo sii tiro badisay dagaaladii ingiriiska dhex marayay wakhtigii ay jireen waxaa la mamnuucay in la dabaaldego maalintaasi Scotland 1640kii sidii loo mamnuucay 1958kii dhawaabaa la soo celiyey in December 25 dib loo dabaaldegi karo waddanka Maraykan mustawtanaadka Protestantiska radicalka haysan jireen 1659 iyo 1681 sida Boston iyo wixii la mid ah mamnuuc bay ahayd in 25 December la dabaaldego waxaanay u arkayeen inay tahay caado Ingiriis oo foolxun taariikhda markaynu dib ugu noqonno markaas masiixiyiintii noolaa waqtiyadaasi waxay u arkayeen inay tahay caada wathaniya oo aanay bannaanayn in la dabaaldego waxaa cajiiba markaa maharajaan kaatoligu ay sameeyaan waxa ku saabsan oo dhan qolyaha kale waxay u qabaan in aanay bannaanayn dhan kale markaan ka eegno waxyaabaha la sameeyo oo ah maalan in wax la bixiyo waxbixintani xaggay ka timi waxbixintani waxay ka timi imbaraatoriyadii romanska ka horreysay tan December maadaama ay cibaadaadkooda samayn jireen waqtigaas ay wax bixin jireen kiniisadda kaatoliga waageedii hore mamnuuc bay ka dhigteen waqtigaas sadaqaadka la bixiyo 25 December iyo waxa kale wax la bixiyo bari dambe alquruun alwasطaya ayay ogolaadeen intii hore waxay lahayn waa caado wathaniya ayaan la bixinin waxa kaloo jira wadaad Christian Armenian oo Nicola la oran jiray Nicola ayaa barigii dambe quruun alwasطa middle age markii la joogay ayuu habeenkii sadaqa intuu la gudo ayuu dadka siin jiray mar dambe oo qarnigii 19aad baa nin shaacir Maraykani gabiyay dabeetana isaga gabayga ku sameeyay ninkan maryaa cascasita ee gadhka cad leh ee maryaa cad leh ee bahasha yar ee ghazaaladu maxaa la yiraahdaa deeradu ay jiidaysay caruurta intuu wax u qaybiyo habeenkii meesha ka soo ridaa gabiyaha Maraykan baa waa damba samaystay idan caado jirta maaha geedkan kristanka ee la taago waa geedkii wathaniyiinta Jarmalku ay taagi jireen idan caadaadka meesha lagu samaynayo dhami waa caado kuwii wathaniyiinta ee diin laawayaasha hore ay samayn jireen haddaba qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay innagu markaa inaynu dabaaldegnaa oo Christmasnimo u dabaaldegnaa ma bannaanta
su-aashu waa taas inaynu innagoo muslimi dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badanoo ka mida ay leeyihin waa ciid wathaniye ciid xataa ciise dhashay ma aha oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan maxaa loo dabaaldegayaa markaa ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay iyadoo ilaahay leeyahy waqaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaani an yattakhida walada xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa wuu icaayaayo wuxuu leeyahay inan buu dhalay anigoo ah buu ilaahay leeyahay allahu laxadu samad waxna dhalin layna dhalin waa ibeeniyaa oo wuxuu leeyahay soo celin maayo iyadoo aan abuurkii hore abuurka dambe igaga adkay haddaba ayuha alxiba sharci ahaan markaan eegno ciidda waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid yihiin cibaadaadkay ku jirtaa sida manaasigta kale qiblada salaada soonka iyo wixii la mida ilaahayna wuxuu qur-aanku leeyay likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuun cid walba wakti ayaanu u samaynay ay cibaadadooda la yimaadaan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون حنا إلهي القرآن ككولي والذين لا يشهدون الزور كوا آن حاضرين زورك مفسرين بدن بوحي كفسرين أيتي عيدها مشركين لا يشهدون بالزور هذه اللي دعوا كوان مرخاتبين لا شيء لكن ما دام أنبأ لقوا قد بين بيلين وحي تلماميسا inay tahay kuwa aan xaadirayna ka qayb galaynin ciid gaaleeda ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa markuu yimi wuxuu arkay carabtii oo ciidaysa waa maxay bay yidhi waxay idhaahdeen waa ciid aanu jaahiliyadeedii ciidi jirnay ansaartii wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku beddelay mid idinka khayr badan ciid aladxaa iyo ciid alfitri baa laydinku beddelay caaisha waxay leedahay guriga ayuu soo galay abubakar ayaa noo soo galay iyadoo laba jaariyadood heesayaan ciiddii ciidala muslimiinta walaysataa bimuqaniyatayn bay leedahay laba heesana may ahayn horta erayga hees markaa maqashaan inta badan dadka waxaa ku soo dhacaya muusigii iyo waxaan la tumayo iyo boodboodka in waxaan heestaa lama yidhaahdo af soomaaliya hees haddaad maqasho waxaa la yidhaha heestii xoolaa lagu raaci jiray tii ceelka lagaga waraabin jiray tii haanta lagu luli jiray tii ilmaa yar loogu heesi jiray hees af soomaaliga kuma jirto wax muusig la yidhaahda muusigga gaalkuu la socday bigilkii ugu horreeye la tumo hindidii la socotay ingiriiskaa wadatay cuudkii ugu horreeye la garaacana kuwii cadan ka yimi baa la yimi dhaqan soomaaliyeed ma aha wax la tumaa haddii laga maarmi waayo qolaa durbaan haysatay haddii laga maarmi waayo laakiin kuma jiro dhaqanka soomaalida waxaan la yidhaahdo idan haddaad hees maqasho midhaha la tirinayaa laga warramaya af soomaaliga midho wasni leh oo noocaasaa laga warramaya caaisha waxay leedahay markaa labada hablood manay ahayn kuwa heesa abubakar baa wuxuu yidhi abimazmuurin sida riwaayadda muslim tilmaamayso riwaayadda bukhaarina mazaamiir bay sheegaysaa abimazmuuri الshayطaani fii beyti rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalihi wasalam ma mizmaar shayطaan baa gurigii nebi maxamed jooga wuxuu nebigu ku yidhi markaa maalin ciideedna waa hediya ababakar ina likulli qowmin ciida wahada ciiduna idan muslimiintu laba maalmood oo ay farxaan oo hees qaataan oo ba u bannaan
ولا بدأ عيدود أما وحكى صهرة إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أبو نبولي عيد ولي عيد بيلاده ما لنا يفرح دو بود دو بيلاده أنك عيد يدوى طنب النبي عليه الصلاة والسلام ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نبي عليه الصلاة والسلام ما دام ويلها وهذا عيدنا وحي شيء يسا تكلين أنا عيد وهاي المسلمين حديث هراء تلمام إن نبي تلمام إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما وعيدها ضدك كلك وكخير بدن أي إلهي دينكو بدلي إن لك قيب قال الداعية إن بقى النبي قويمي وحولي وحن كنا دري بوانا ما شاء الله يلاحظه إن نقالكو قاله من قصوا النبي قوله هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد صنم دي الجاهلية دول عبد شرمية كويا لي قالوا لا ما يبين هذا فهل كان فيها عيد من أعيادهم بنبولي هذا ما وحي هين ميلي يكون عيدان مركز الله يقول لا ما يا هدانا إلا بضع منا هين بنبولي الندر قاقو أوفي سؤال شيء سويدين تلا وحيت هدي وثن جاهلي وماشي كل شيء يقول عيد مايو كريسماس كو وثن جاهلي وهانشري ومر لبعض هدي عيد جاهلية ده هيد للسمين مايو كريسماس كنا عيد جاهلية بوها عيد ضد كان إلهي رميسنين الرميسنة أو ثانته عيد دودي بيهيد كريستن كوي كقضي ده إنه نوي لقاته إذا وبدعاء كريستن كنا سو كردية في الشريعة أنا كم بنانا ساد رديد علماء المسلمين توحي كتل المامية إن أنا مرنا بقول بنانا إن دتك مسلمين تا عيدها ديمها كلا إنك كقيب قلان كريسماس كو إما عيد كريستان ونقضه هدون نقوم ويانا عيد وثني بنقضه كوان إلهي عابدين وثنيين وإسكندنافيين كي جرمل كيو آل هذا كلا عابد شرع عيدو دي أما عيدي كوي كريستان كان نقضي النصارى لبدا عيدود مدنا ما بنانا دينهان إنه كغيب الله عيد وثنينا ما بنانا عيد كريستنا ما بنانا سادر ديد النبي وحولي عليه الصلاة والسلام حديث كصحيحين كي الله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أنك أحكوي دنبيي حق وقتك مركا لقايقو هرية مالنتا قيامة وجنة وهرقلي حق منزلة مركا لقايقو بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فسيا شيب النبي يقول إيجا كتابك هرطايا لسيي أنك أنا كذبنا لسيي فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه وجمعة ابو النبي يقول عيدو دي لسيا يسكو خلافين قرن وايه سبتي أحدثونا ما يهينه جمع بعيد ابو النبي يقول إلهي بانا نوهنوني فالناس لنا فيه تبع ضدكو أنك أي خدم يتبع نوغيون وضب الصعدان من النبي يقول اليهود غدا والنصارى بعد غد إذن إنه يجا تبع النغنا ما بنانا جمعة عيد نوعه سبت نوماها عيد الأضحى عيد الفطر با عيد نوعه كودك لا عيد نوماها سيدا وقد أيها الأحبة قال علي سنتني قال قد يشضتني دينتكم ما بنانا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وحان النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم نك الضاد سوء كيسية أي سوء كيسية وحدين تان كوبنانين وحي وعام كويهين كريسماس يقابله كريست باوي وبحنايا سادو قيب غشا والدين ساد دين كلا عيد دو عيده وعباده ساد عباده الدين كلا وسميسته سيدا وقد أيها الأحبة نبي يقول خالف المشركين
والمشركين خلافة وعقيدة يا دين يا شريعة يا خلافة أعياد وحي كم تهي وحل اسكو خلاف سيء النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور وروح عن ذين كدقيا بدعة عصبية مادة فإن شر الأمور محدثاتها بدعة مادة وحا شرك بدن لا محدث وحا هي بدعة كمدة وكل محدثة بدعة كستانة محدث شيء كستول سود الرينا وبدعه هدي بدعة مسلم كسود الري حديث وكدقيو بدعة كريستان كان كورن إلى 25 ديسمبر وبدعة مسيحية وأوثان تيكسون نقليانا وابتداعية والله يمادين بدعة مسلم بان لغو وقلينا ما بدعة كريستان بان مركا لغو وقلانا يا حاد غريب وأمريكا dadka muslimiinta ah ay isaga darsameen maxaa xalaala iyo maxaa xaaraana waxa la mid ah ciidaha kan new year baa la mid ah sanadka cusub sanadkan cusub ee January la sheegayo ugu horeyn Julius waqtigiisii baa loo dabaaldegay waqtiga ugu horeeya waa 45 BC ee loo dabaaldego waqtiyadii dhexe looma dabaaldegi jirin waqti dambe dib loo soo celiyay kalendarkani waa kalendar Roman ah kalendar Roman ah Romanisku waa wathaniyiintii hore Juliusna waa boqorkoodii waa ninka bishan July la yiraahdo isku magacaabay boqorkii isaga ka dambeeyana Augustus bisha August la yiraahdo isku magacaabay bilaha kala qayb ka midina waa ilaahiye magacyadood March waa ilaah dagaalka إله الحرب بي مارس يراهدان وإله هي مقعيدود قيبها الدنبنا واترو سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر سب وبشي تضباط أكت وبشي سيدادات نوف وبشي سقالات دس وإنك ندس مالية وحاشقنا وبشي طبنات وهذا محل بيه طبنية كردقا محي سويد ويداريي بغردن باي سويد ويداريي شولي يثبت تدبي لحدا مالبط حقه هرك قدري وجانوري فبراير كو صدر صدي كدب غريغوري بوب كي لودن جيري ايام شولي وقتيسي بش سنه waxa la xisaabin jiray 356 iyo 0.24 waxa la ogaaday in xisaabtaas ay qaldantay qaladkaasi wuxuu keenayaa sanadkiiba dhowr minute 12 minute inay soo baxaan oo equinoxiska marka la xisaabiyo solar systemka inuu qaldan yahay saadaradeed ay waxay yiraahdeen hadda waxay xisaabiyaan ay yahay 356 iyo 0.25 kun shan boqol iyo 280 markii la marayay ayuun baaba 10 maalmood hore loo soo guuray bishu iyadoo afarun baa la yiri may saaka waa 14 Oktoobar خميس وبيشو أفر تهاي جمعي كو حقي أيما اللي هو خميس تاني وحويا وخميستي أفريا طبنات بايهيد ما لتكو حكتا أنا شاني طبن باي نغنسا إنجليز كان ديدي لا بغلا السنة دين كنا دوغو ديدنا إنجليزكو 1752 مالهاسي أيو سنة اسكا أقبلاي مركا إساقا وقت جيبا وكسي كورنايو كوبيا طبن مالمود بيساقو قوري مالهاسي على كل حال waxa ay gaala walaaqday hore iyo dib u guurtay sanamadeedii waxeeda u baxsatay maxaa dawladda baaldegaysa adiga kaaga xidhan maxaa ciid ka dhigay haba yaraatee ciidahaasi wax ay shariicada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waxaan oo dhan fikradda ka dambaysa ilaahay wuxuu quraanka inagu leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدين توردين لما يستربا إلهينا لي مسلمين تدبت نقبصتي وحويان مالتي كالجرال سوسايتي مركا إلا نولادين بلشو نوعيات ربضان يسوق شرطو ديما بدان هايستا ما يكالا قرنين وحي قادان لهايين يا وحي كتاقي لهايين يا وحوال بويس كقاتين
waxyaabo dadka aynu la wadaagi karnaa jira say culimada qaar badani qabaan مثلا ninka gaalka ah haddii ilmo u dhasho waa la tahniyadeyn karaa dhib maaha waqti aan ahayn christmasyadii waxa kan waa la siin karaa maxaa la yidhaahdaa hadiyad waa hadaaya waa laga qaadan karaa ama tahniyada ku saabsiisan ciidaha ilaahaaga inuu dhashaan kuugu tahniyadeynaya dee ma bannaana Christmas Day inaad ku tahniyadaysaa ma bannaana ma bannaana wax macsiyo uu ku jiro inaad ku tahniyadayso idan tahniyaadka la samaynayo ayaamaha wathaniga ama ayaamaha diimaha kale ee haystaan Christian Yahuud waxay doontaa ha ahaato ma bannaana la hadiyad bixinteedaan bannaanayn ولا تهنية دام بنان سا جماهير العلماء وبدنيهين ولا كدقن كدام بنانين دقن مدى يديمه وينك على الصعناضة وين دقن قالت كم نقولين قف مسلماتي مميز بني آدم كويس قميسته لكن وين حر أهاته ودين هذا أضحر وأهاته وعنكو سو كوبي يا وقت كوبي هي وإننا كلا قرنا حان قادن كرنا ودتك كلا كقادن كرنا أيام حيننا كقادن كرنا دتك وحا أنفع علي مك كبقاته مثلا ساينسيسكو أنفع بولي ويرين دتك أنت كبرته لكن أنت ضفرة حيرته أما سروالك دلدلوشته أما فيرها قاوسته أما بروك صاحرته أما كبرنا أنت حماها كقضية وحموه فدودي سال الله قاطع حموه وحبا وقت بدن وباهنا عاود أنت بس بين كريسة أما وحا قيمها له وحيبها هين وقت يجهد يديد إذا وحي اللي يريك قاطنا كما قاضنا وحي اللي يريها كقاضنا وين كقاضنا وعقل فورا كمسلمين تكون عاي وحي اللي يري سوقاتنا وديدين وحي اللي يريها كقاضنا وكقاضنيا إذن أيها الأحبة معكو سو كوبيا مالمها نياما وثنين نماها كسر استنادان أما الديمة كلها كسر استنادان مالما مسلم يدين السلام كسر استنما سيدا وجد إن لقى قيب قاله سنبا وما بنانا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم